gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa waxa uu ka hadlay arrimo maalmihii dambe la dhex qaadayay isla markaasina ka soo yeeray dawladda dhexe ee dalka. waxa uu gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meere Makaraan uu sheegay in soodimaha gobolka Shabeellada Dhexe ay tahay lama taabtaan isla markaasina aynan suurtagelin in ay qayb ay ka noqdaan soodinta gobolka Shabeellada Dhexe halka looga arrimiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa sheegay in arrinkaasi aysan qaadan karin maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan arrinka ku aadan in la wareejin doono garoonka Lisile iyo waliba dekado kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe loogana arrimin doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dacayo Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe wuxuu ku saabsan yahay Hirshabeelle inuu xuquuqda ay leeyihiin inay helaan, waana mid ay xaq u leeyihiin dastuuriya, qofna kuwa xadgudubmayaan, qofna maaragtay wax ka marogsado maayaan. gobol kasta haddii uusan asiga isku tashan wadankii qof la arkaba salliga uu lahay meel uu dhigtaa soo ku fadhiistay. Hirshabeellena waa inay salligeeda ku fadhiisato, meelaheeda dhaqaalahan waa inay ka soo saarato dhaqaalaheeda, ay ayada isku tashato. haddaynaan isku tashan ma dad kalaan tuugaynaa, dad kale maa gacmada haarsayna. haddaan anaga ka soo saaran gobolka aan anaga dowlad goboleedkayna ama gobol ahaan gobolladeena aan joogno, haddaan khayraadkayna soo saaran oo anan wax qabsan oo anaga isku tashan, yaan anaga wax ka sugaynaa. waxaana marka dowladda dhexe waxyaabaha ka yimid xaggeeda aad iyo aad ayaan maaragta ugu xunahay, mana ka filahayn. waxaan rajaynaynaa inay arrinkaas hadduu ilaahay yidhaahdo ay maaragtay dib u fiiri doonto arrimaha ka dhacay, qaladkaasna dib loo sixi doono. waxaan aragnaa anaga in la yidhi caasimadda Hirshabeelle diyaarad ku wadagi karta warqad inay qorto dowladda, wax hataa haba yaraatee aan sugayno una fadhina ma ahayn. Cabdifataax Axmed Maclow, Cabdifataax Zaki, Bulsha TV, Jowhar.